guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa dhawaan soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in basaska xaafadaha magaalada Hargeysa ay raaci karaan 15 qof waxaana wadayaasha basasku kordhiyeen qiimaha lagu raaci jiray waxayna ka dhigeen iminka 3,000 oo shilinka Soomaaliland haddaba xaafadda Maxamed Mooge oo ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ayaan la kordhin qiimaha oo halkiisii taagan magacaygu waa Xasan Xuseen oo ku magacayay Xasan Kaamliban waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka ururweynaha City Bus ee golaha fulinta waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodobka koobaad baabuurka baska ah waxa la yiri iyadoo lala dagaalamayo cudurkan faafaya 15 qof la saaro waanu aqbalay si fiican guddigiina waanu ka wada hadalay waanu aqbalay 15 qof baanu ilaa alaana ku shaqeynana aniga oo wakiilka istaamada Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe iyo jameecada iyo meesha laga dhagax barkato u baxa 15 qof ayay qaadayaan basasku waxaanu ballan qaadnay maalintii aanu guddiga wada joognay ee ugu horeeyay 15 bishan inaanan kordhin doonin wax lacaga sababta oo ah dadka yaga aanu u shaqaynayno inuu dhex joogno oo aan kari karahayn maadaama dawladina ay tahay dawlad curdinahoo dhaqaalaheedu hooseeyo cidina aanay aqoonsanayn runtii kama sugayno gacan iyaga inay meel wax nooga soo qaadaan suuragal lama noqon karto marka waxaanu go'aansanay dheregiyo marbay dhaqashiyo marbay ka yihiin dherego xaraam maalintan oo kale waa gurmad qaran baa la yiraahdaa gurmad qaran baan doonaynaa inaanu gallo 15 qof inaanu qaadno ilaahay hortiisa ka ballan qaadnay qoraal la sameeynay inaanan kordhin karin 2,000 ee aanu ku qaadna dadka iyaga aanan ku kordhin karin sababtoo ah dadku ma haystaan siday ku nool yihiin ilaahay weyn baa og ku nool yihiin marka waxaynu aan ku khasbannahay inaanu ku qaadno 2,000 oo waliba aanay heli karin 2,000 baa xataa heli karin dhibaato ku ah ma kordhinayno waxaase ayaan daraa qaar maamulka iyaga ka mid ah inay istaamada qaar yidhaahdeen waa la kordhinayaa lacagtii oo 3,000 baa laga dhigayaa sida anigu aan maqlay taasina waa dembiilayaal waa dembi weey qaar ka mid ah shacabka raaca basaskaasi ayaa ugu baaqay xukuumadda inay dhiiri geliyaan baslayaasha xaafadda Maxamed Mooge anigoo Muuse Yuusuf Maxamed kana mid ah dadweynaha xaafadda Maxamed Mooge waad aragtaa baskii sidii sharciga ay soo saartay guddiga ka hortagga cudurka coronavirus wuxuu sidaa imka 15 qof xaafadan waliba istaankeeda waxa u dheeraada inaan wax lacagna lagu kordhin oo qiimihii hore bixinayno sida awgeed waxaan codsan lahayn in ama shidaalka laga jabiyo ama 10 litir si carruurta biilkoodii iyo u helaan isbeerkii iyo masaariiftii loogu shubo maalintii gaadiidka basaska xaafadda ina Mooge u baxa ayaa ah basaska ilaa hadda qaada lacagtii hore ay dadku ku raaci jireen Cabdiraxmaan Yaasiin Abubakar British warbaahinta SBC Hargeysa